السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وعد السلام هيا وحاندكم سلامة سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا دمانتين شرقرية عدلدن جارسية بيتش والبا يميل بكتورة ديكم ماسم. ما أنت كما هلا السياسة وحكى هلا أرمها بالشدة مدة دوبة أنا ضبلوه أرمها بالشدة كما هلين وحنا هذا مشغولي سياسة الصومالية وآد سحمد دي ذا أوكع سنين لكن ما توخيرنا سنينا وحكى لنا أرمها سوشيال ميديا هذا كتاجن قاصة أرنت رود حيث فنانين تا صوماليات لماذا مالين هقول الراتمان تا سوشيال ميديا فيسبوك تيك توك سناب شات waxaad ku arkaysaan fanaaniin Soomaaliyeed iyo jilayaal Soomaaliyeed oo isku dhagan oo magaraysa hawada isu marinayo aflagaado iyo cay sidaad wada ogtihiin Soomaalidu waa dib jeceshahay waraaga bajaclo xaqiiqda dhabta hadii wadaad Soomaaliyeed oo culimo ah oo qudbeenayo oo wax wanaaga inuu soo gudbiyo rabo cid daawanayso ma leh lama daawanayo waxa la daawanayaa gabadha iyo wiilka ama gabdhaha iscaayo ama gabar sawir khaldan laga soo qaaday aad iyo aad baa loo barmootir gareynaya loo buunbuunaya social media oo dhan buu qabsanaya aad iyo aad waxa weeye waa arin ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad dhex taagan weey anigu waa isweydiiyay waxa ay gabar yar oo qalad ka dhacay qalad yar ka dhacay laga yaabo sawir si khaldan looga qaaday social media la soo geliyo odayaal waaweyn oo nooc walba leh rag iyo dumar oo raadinay oo rabayna waxaasi arkaan doonaya arkaysa aad iyo waxaan markina maanta ka hadlo waxa social media ka arkaya gabadha jilaaga ah ee caanka la wada garanay Nimca Jokor walaashay mana saaxiibaday iyo walaashay farxiye kaba yare oo ayadana aad isugu dheernahay oo gabar qiimo badan oo wanaagsan ah oo social media isu marinayo aflagaado waxaan arkayaa rag iyo dumar u kala safarayo warka iyo xanta iyo xumaatada u kala qaaday qaarna social media intay soo galaan dabka baasiin ku sii shubay dabacsanna isku diraan aad iyo waxaan rabaa marka bal wax yar inaan ila qabsiyo waxa socda hadda sida wada ognahay la soconno fanaanka dalmar yare ayaa show wuxuu ka dhajistay meesha la yiraahdo wadanka la yiraahdo Australia asaga markuu dhajistay isla waqtiyadu dhajisanayay waxa ayadana soo dhajisatay fanaanada qaaliga ah ee aadka loo jecel yahay aniga aan waliba aad u jeclahay King Jama marka waa happy new year ka inay ka heesaan bay doonayaan marka waxa dhacday fanaan dalmar saaxiibkay wanaad isugu weynaa asagana inuu showgii uu kansalay showga Australia uu rabay inuu ka dhigto maadaama gabadha walaashii ay bartaa dhajisatay inuu kansalay ninka la yiraahdo dalmar marka arintaas oo marka suuqa iyo yuxuudaas suuqa ka socoto ya labadan gabdhood muddo dheer macnaha xaaladoodu aysan saxsanayn kasto dad isku wanaagsan oo isku fiican yihiin oo riwaayado badan oo dhigeen aan wada daawano la soconno haddana xaaladoodu ma deganeen muddo dhow marka arintii waxa hadda soo cusboonaysiisay sida aniga hadda igu maqaalaa arintan dalmar iyo King Jama dadkii qabiil baa dilay aadiyad qabiil baa Soomaalidii lafaha ka galay aniga Minneapolis baan deganaa anoo daqbulo 2009 ilaa 2010 wajixun baa kamid ah wajixu waxa la yiraahdaa ma ana wajixumahay ama dad wajixun ay jiraan ma wajixu waxa la yiraahdaa fanaaniinta heesaha fanaaniinta hore ay lahaayeen qaado aroosyada ka qaado wajixun baa la yiraahdaa macnaha heesa uu san lahayn asagu intuu CD ku shubto arooska la taagan ama meel xalfada la taagan oo asaga aan la iimaan karin idea oo creative aan ahayn
يا قربها وحلوغة يقانا وجيحن مرك وجيحن تاسان كمدها وفن كان هذا جعل عروض قبلوه استودي وحبان كل هاندر نورث مينيابوليس أروسنا وان دوجر واجا يدا مركا حيسا لقب وان دحقله وان برتي فنانينتي مينيابوليس يكو يوروب جوغي يوعدن waa wada bartay waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah in fanaaniinta Soomaaliyeed ani kuwa jooga Soomaaliya war kama hay laakiin kuwa qurbaha joogan ka hadlaya in fanaaniintan magaca Soomaaliyeed sheeganayso in qabyaaladu ayagu ay hostal stuudiyaha magodka lagu qayilayo muusigada lagu tumo qabiil baa loo kala joogaa reer hebel halkaasay fanaaniintooda muusigistooda iyo magaranaysaa cidii markaasi alays loo dhan halkaas joogan fanaaniinta Hargeyso iyo waqooyi ka soo jeedo godkaas leeyin fanaaniinta magaranaysaa saasa loo kala fadhiya aadiya isma galaan dadkan haddana waxa weeye warkaas la kala qaadaya telefoonka intii la iswacaa la soo dhigaya wadada iyaga isrufiyaanay macnaha nolosha ay ku adag tahay weey ay gaar noqdaan magaranaysaa aadiya waagaan idinka midka wixii aan arkayba ka hadlaya marka arrintan hadda taagan noocaas u yareegtahay marka idin leen noocaas oo waa maxay kiin jaamac iyo nimca jokor hal xaafad bay ka soo jeedaan hal awooba niga la yiraahdo dalmar iyo farxi ka beeran wadada isugu dheer dalmar xaafadda uu ka soo jeedo awoogiis wuxuu la mid noqday farxi ka beeraadiyad marka hadda wadada magaalada degan oo riwaayadii wax dhigo marka xaaladda halkaas ka imaad anigu macnaha labada gabdhood in arintooda la buunbuuniyo ma qabo inaan gabarna la safto gabarna ka soo horjeesto anigu aqliyadeeda isiin mayso laakiin waxaan rabaa inaan maslaxo iyo wanaag halkan aan ka soo jeedin wanaagaas oo ah inay yihiin laba gabdhood oo walaalo ah inay magaalo wada degan yihiin haddana inay yihiin dadkii hore ee reer Minnesota iyo reer Minneapolis isla yihiin in macnaha hadda iyo waqtigan xaaladda la taagan yahay ayagoo gabdha Soomaaliyeed haddana hooyooyin ah in macnaha social media caay iyo aflagaada la sumariyo wax wanaagsan ma media-hana waliba qaybta social media Facebook la isu soo fariisto haddana rag iyo dumar social media magac ku leh ka qayb qaataan oo gabdhaha qaar liidaan qaarna ay la saftaan taasaan ka digayaa waxaan leeyahay labada gabdhood nimca jokor marwata ma sha Allah odagaaga ma sha Allah odaga saaxiibanaha weeye ilka case waa fanaan Soomaaliyeed waxaan halkan u marnayaa in macnaha arintan uu step in uu soo sameeyo oo gabadhiisa macnaha hadii laga gardaran yahay haday gardaran tahayba uu si hoos u lahad wanaag maaha fiicnaana maaha farxi ka beerana waxaan leeyahay hooya tahay caruur baad dhashay magaalada degan tahay qof magac kula tahay macnaha kuma wanaagsano ina social media iyo Facebook-ga iyo idaacadahan macnaha aflagaadadiina iyo caaydiina la dhageysto oo adiga soo fariisatid waxa way wax wanaagsan ma wiilal qiimo la kula dhashay abwaaniina reer aad iyo aad magaranaysaa loo ixtiraamo yaa ka soo jeedaa macnaha anigu waxaan dhihi lahaa farxiyoy arintan hoos u dhig aad iyo aad dalmar iyo kiin jaamac iyo hawshooda ayaga fanaaniina irsaaqad bay raadsan adigana fanaan baa tahay ayadana jilaawi aad iyo aad laakiin dadkan soo dhaxgalayo ee ugu horeeya daahir cali show aniga kama hadleen laakiin sababtaan uga hadlayo in uu soo galay in arintan maslaxa iyo wanaag uga raadinay waxa weey in magaranaysaa dadka cayayaanka ama magaranaysaa gabdhaha kastuumooyinkooda ku dhagan in runta loo sheego daahir baa soo galay nimco oo gawar marwa oo nin adeerkay u qabo social media soo fariisay hadda ka hor baan macnaha dhinac uga leexanay waana wax talaabo aan la qaadin laga jawaabin laakiin tan waa laga jawaabaya si wanaagsan ba waliba looga jawaabaya in social media soo galo qabyaalad cadna uu yiraahdo farxiyo yaa aniga ixigto oo in adeertay isku reernahay waxaan caayayaa gabar rag la dhashay gabar ma garanaysaa ehel arxal rag la dhasheen yana aflagaadeynaya laga accept gareyn maayo farxiyo anagana la dhaltay kaba yare waa walaashay macnaha qabiil hadii la yiraahdo iyo reer hadii la yiraahdo Soomaali gabadha kulmiso weey farxiyo kaba yare nimcana waa gabar walaashay haddana dumaashideena maadeernahay u qabo weey
daahir marka daahir calasow lagaa ogolaan maayo tii hore yaa kuu meel martay laakiin tan macquulgal noqon mayso tan waa lagula xisaabtamaya si wanaagsan oo degan yaa weliba lagula xisaabtamaya in gabar marwaa oo nin u dhaxday oo meel degan inaad taad gabar isqabteen aad macnaha oga hiilisid oo aad soo istaagtid lagaa asmici maayo waana lagu jawaabaya xaqiiqda dhabta farxiyo waa walaasheen laakiin haddii macnaha arrintu aad ka dhigtid qabiil iyo gabadhaydaan difaacanaya oo aan magaranaysaa gabdha reero dhaleen iyo dad dhaleen oo wiilal la dhasheen oo duqbilowgan uu walaalkeed yahay yaan aflagaadeenaya caaya sharma boy baan ognahay daahirow wixii dhacay waa lagu aamusa macnaha tan lagaaga aamusi maayo haddaadan oday ka noqonaynin oo gabdhahan aadan ka odayeynin oo aadan dhehaynin gabdhaha waa walaalahay arrintooda ha la xaliyo gartooda ha la galo haddaadan dhehayn oo dagaal iyo qabiil iyo qabyaalad iyo qurun aad la soo fariisata ogow nimco annagay noo dhaxday xaqiiq dhabtee oo ooridanada weeye maasha allah farxiina waa walaasheen haddana waxa socdo iyo qaabkay u socoto iyo qaabka loo kaambeyn gareynayo qaab wanaagsan maaha dalmar waa fanaan soomaaliyeed fanaan dhalinyarada soomaaliyeed ay jecel yihiin weeye anigu shakhsiyan saaxiib baan nahay oo inaan ceesho milix weliba isku meel kusoo nooleen weeye macnaha saacaddan iyo qabiil maalin dhaweetana waa daawanaynay macnaha shir lagu qabtay magaalada minneapolis oo weliba asaga iyo cabduul yarkay dhahaan isku reerka yihiin iyo qabanqaabinayeen oo qabiil loo heesi marka qabyaaladda hadday bilowdo iyo qabiil in loo heeso iyo reero loo durbaantumo waxa weeye fanaaniintu qabiiladooda u heesayaan reerahoodana macnaha u durbaantumaya aadiyaan macnaha arrintaasi waxaan oga wadaa oon aan hadalkan si toos ugu dirayaa daahir iyo habiqlaysa group nimco isku dayay inay macnaha ayagoona xal raadinayn inay qabiil ku taargeed gareeyaan ayagoo gabar qabiil ugu hiilnay aadiya ayaga waxa weeye haddaad ku sii socotaan waxa weeye waa xaaladdu way isbedelaysaa aadiya waxaan leeyahay marka nimco iyo farxiyo gabdho Soomaaliyeed baa tiin waliba gabdhaha magaalada loogu jecel yahay baa tiin reerama matashaan Soomaaliyeed matashaan arigu waxaan halkan idiin soo marinayaa inaad nabadda ka shaqaysaan waxa xun waxa yar ee xumaatada keenaya ee aflagaadada iyo caayda ee magaranaysaa ee kordhinayo inaad taa dib uga degtaan arrintan macnaha si degan oo xal wanaagsan oo waaro loogu helo inaad macnaha miiska wada timaadaan aad iyo aad gabdho wada degan oo darise oo loo baahan yahay berrito macnaha inaad aastaan ayaa tihiin xumaatadan macnaha la idin kala warqaadayo la suuqin dirayo wax wanaagsan ma waxaan leeyahay farxiyo walaashay calm down nimcana waxaan leeyahay walaashay calm down adigana ilka xasan waxaan leeyahay adeer arrintan gabadhu waa xaaskaaga maalin walba ma daawan karno ilka xasan toos kula hadlaya halkan ma daawan karno gabadha xaaskaaga oo maalin walba social media laga aflagaadeeyo laga caayo ayadana wax caayayso nin raga noqo laandheera 8 milyan baa ka soo jeeda aadiya dhaqankooduna waa adagya anigu waxa la wanaagsan in macnaha arrintan aad dib u fiirisid dib ina u fiirisid baa la wanaagsan aadiya ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa daahir calasow haddaad nimca joker qabiil ku soo weertadiyo groupkaaga oo aaminsan tahay hadda ka hor inaad sharma boy iyo nimcadanba aad aflagaadeysay oo cid dhaqaaqda la waay waa la dhaqaaqaya hadda xaqiiqda dhabta ah dhaqaaq baa dhacayo jawaab baa imaanayso si degan oo aad u deganna nimca ragga la dhasho aniga ka mid ah waa ku wareysanaynaa aad baa idin salaamaya dhammaantiin